waayahay haddaba maanta barkhad jaamac batuun hadalkii uu ugu jawaabay wasiirka arrimaha gudaha ee ninka fiqi lagu magacaabo wuxuu ahaa hadal lafjab ku ah jiritaanka jamhuuriyadda Somaliland. Waxa uu yidhi fiqi iyo kuwo kale oo la mid ah ayaa hortaagan inay ummadda Soomaaliyeed midowdo. war inaguma midowbaynu rabnaa mise Somaliland qaran noqota. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bartana diga daawanaysiin waa barteennii aynu ku lahayn YouTube channelka reer Somaliland. aad baan idin salaamay waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay si nabad qaba ha inagu gaadhsiiyo natiijada doorashada ee Somaliland doorashadii quruxda badnayd ee ay gashay. haddaba muuqaalkeena waxaan ku dul istaagi doonaa nin lagu magacaabo Barkhad Jaamac Batuun oo ah xildhibaanka ugu codka badan golaha wakiilada ee Somaliland ama taariikhda soo maray. sidoo kale xalay waxa baraha bulshada gilgilay nin lagu magacaabo fiqi lagu magacaabo hebel fiqi nin lagu magacaabo oo ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay ama ka xumaaday ama caloosha ka xanuuntay doorashadii quruxda badnayd ee Somaliland u qabsoontay. waayahay haddaba maanta Barkhad Jaamac Batuun hadalkii uu ugu jawaabay wasiirka arrimaha gudaha ee ninka fiqi lagu magacaabo wuxuu ahaa hadal lafjab ku ah jiritaanka jamhuuriyadda Somaliland. waxa uu yidhi fiqi iyo kuwo kale oo la mid ah ayaa hortaagan inay ummadda Soomaaliyeed midowdo. war inaguma midowbaynu rabnaa mise Somaliland qaran noqota. oo dhowr iyo 30 sanadoodba waxaynu adduunyada ka gadanay ama aynu sheeganay inaynu dal cagahooga ku istaagay oo ummad kaligood ah ayaynu sheeganay. inaguma midowbaynu rabnaa mise waxaynu rabnaa inaynu dal gaara noqono. bal ninkii anu hadalkan aan la fajacay ee yaqyaqsiga ah anu ma dhaliilayo xildhibaanku waa xildhibaankaygi balse hadda ilaahay in yaroo naqan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. oo Soomaali midoobi weydo oo Soomaali kala tagtana waxa sabab u ah fiqi iyo afar la aqliya ku hadlayay wasiirka arrimaha dibadda. waayahay Barkhad Jaamac Batuun waxaan leeyahay war doorashadii weli laguma dhawaaqin inuu kulmiye helay oo uu Muuse dib u talin doono 7 sano ama 5 sano ama inuu Cabdiraxmaan Cirro talin doono 5 sano iyo intii dheeraad ka hayd weli laguma dhawaaqin. war xilli ma tiraahdaa fiqi iyo kuwo kale oo la mid ah ayaa hortaagan inay ummad Soomaaliyeed midowdo. inagu midow ma rabno dal gaaraynu rabnaa ummad gaaraynu nahay Somaliland baynu nahay. ilaahay baa nimcayna siiyey ilaahay baa barwaaqayna siiyey ilaahay baa ina siiyey amniga aynu ku naaloonayno oo shacabkeena isgaadhsiiyey ilaahayna way garabsadeen. laakiin Barkhad Jaamac Batuunow waxaan ku leeyahay hadalkaagaasi quluubta iyo qalbiyada shacabka reer Somaliland way diideen oo way ka biyo diideen ee waxaan ku leenahay intaad mar kale ka soo hadashid waxa Soomaalidu horta waxay ku mahmaahdaa wixii qalbiga kaaga jiray afkuna ka xada ay Soomaalidu tiraahdo. maanta Barkhad Jaamac Batuun wixii uu ku hadlay wixii qalbigiisa ku jiro ku hadlay ee wax kale kuma hadlan. waxaan leeyahay hadalkaasi nimankii mucaaridka sheeganayay ee imika lahaa annaga halada hayay iyagoo natiijadii lagu dhawaaqin wuxuu la jab ku yahay. waxa weeye nimankii mucaaridka ah fiilada imika inay taliyaan doonayo buu la jab ku yahay waana ayaan daro. sidoo kale bal waxaad leeyahay ninka wasiir fiqi lagu magacaabo oo isagu xalay aad uga xumaaday doorashadii Somaliland gashay ee ahaa one man one vote ka ahaa. bal hadda in yar leeg isagoo leh safiiradii ku sugnaa waxa weeye sharcigan la tiigsan doonaa Somaliland waxay ula macaamileen sidii dal jira kaligood ama kaligood taagan. bal hadda in yar leeg tan u dambaysa waxa weeye safiirada ajnabiga ah dalkan ku sugan qaarkood waxay tageen Hargeysa oo doorasho ka socotay dowladda Soomaaliya mowqifkeeda way cadeysay doorashooyinkaas ku saabsan. doorashada waa maaragtay inkastoo nidaam gooni goosada doorashadiis waxa laga dhahayo aysan wax weyn ahayn haddana inay si nabadgelyo ku dhacdo dadka Soomaaliyeed oo si nabadgelyo doorasho ku qabtay way. runtii waxa ayaan daraa in safiiro ay statements halkaas ka jeediyeen. safiirku uu qarinayo dalku safiirka ka yahay uu leeyahay dal hebel ambassador hebel baan ahay dowlad hebel ambassadorkeedaan ahay laakiin dalka uu inuu ka qariyay markuu statements ka sheegay qaarkoodna inay ku tilmaameen country. waan u yeernay safiirka Daanishka. waayahay wasiir fiqi waxaan leeyahay
war haddii aanu kuu nimaadno annagu dal gaaroo jira ayaanu nahay soomaaliyana sababtaan ugula soo noqonin waxa weeye annagu soomaaliya kamaanaan goyn laakiin dowladnimadii aanu ula tagnay awoowayaashay oo u geeyeen umaanu kala soo noqono waa raalli noqda waa idi fahmi weyne intaasaanu nidhi waxaan leeyahay bal niyeyso haddii aanu kuu nimaadno somalilanoo calankii shayaadiinta sidata haddii aanu kuu nimaadno bal xaggeedna geynaysaa burundi baa ku ilaaliya sanku intaa leeyahay waar keniyaan baa ku ilaaliya xalaan aanan tegi karin 17 dambe ay muqdisho ka kooban tahay waxa weeye kama talisid xaggeed annagana geynaysaa xaggeed annaga noo wada fiqiyo war fiqiyo bilaantinimada ha ka tagin walaalnimada ha ka tagin ee wixii aanu qabsanay oo country sheeg waxa tiri war dalka Soomaaliland waa dal horumaray inaynu kaga dayano horumarkii gaadheen iyo amniga sida iskugu tiirsan yihiin sidaa u hadal laakiin aad tiraahid xaasidnimo la soo fadhiisatid oo tiraahid halka waxa weeye nimankii tagay waan la xisaabtami doonaa wardaaday xaasidnimada iyo cuqdada ku haysa ee nimanka safiirada sheeganaya beelahan caalamka waxa la yiraahdaa qabyaalad halkaas iska dhigeen wax ma garanaysa human rights la yiraahdo isticmaalaan war waxa weeye naga xisho oo umada ka xisho oo bilaantinimada caafimaad qabtay maskaxdooda caafimaad qabaan ka xisho xildhibaan barka jaamac batuun waxaan leeyahay hadalkaas wuxuu ku ahaa mucaarid iska daa mucaaridkii maalinta dhawii tartamay iska daayo wuxuu lafjab ku ahaa umada reer Soomaaliland mucaarid iyo muxaafid saqiir iyo kabiir lafjab buu ku ahaa ninkaaga maanta yiri wasiir fiqi iyo kuwa kale oo lamid ah ayaa hortaagan inay Soomaaliland iyo Soomaaliya midoobaan waayaan daro waana yaqiiqsi ka soo jawaabaan ku leenahay raali gelin ereyga ka bixi wixii aad uga jeedayna umada u sheeg